Assalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada mid ka mid ah casharada ku saabsanaa barashada luqadda Ingiriisiga. Casharkan waa qeybtii afraad ee Small Talk Part 4. Marka waa wada hadalka gaaban. Waxaa dhacday marka interactive practice oo ah wada sheekaysi isdhexgal ah ama laba qof oo wada hadlaysa marka ay isbaranayso ama marka isdhexgal ay sameynayaan. Marka A iyo P waayo labada xaraf marka wixii la rabo halkaas ayaa la gelin karaa. Hore ayaan usoo sheegay. Marka A ayaa bilaabay waxa uu yiri Are you John Wright? Ma waxaad tahay John? Ma waxaad tahay John? Waa marka dhehaysid Are you John Wright? Wright-dan ayaa ka dhigaysaa jawaab. John ayaa tahay sow ma ah waa marka sow ma ahan waa marka right. Yes oh marka waa yes oh waxay la mid tahay adigoo tiri ha Allah camal waa marka ohdaas marka waa Allah ama hadal qabsigooda waa dadka luqadda Ingiriisiga ku hadla. You are in my English class right? Waxaad dhigataa galaaska luqadda Ingiriisiga ayaad la dhigataa sow ma ah waa marka yes oh you are in my English class right? Waxaad la dhigataa galaaska luqadda Ingiriisiga. Yeah Marth magacayga waxaa la yiraahdaa Marth. Yeah Marth magacayga waxaa la yiraahdaa Marth. Well hagaag marka well waxaa dhacday waa hagaag. It is good to finally meet you. Ugu dambeyntii way qurux badan tahay inaan kula kulmo marka ama way wanaagsan tahay inaan kula kulmo marka ugu dambeyntii marka well hagaag. It is good to finally meet you. Marka ugu dambeyntii way wanaagsan tahay inaan kula kulmo. Eegi wuxuu yiri how are you enjoying the class? Qaab noocee ayaad ugu heshaa ama ugu raaxaysataa fasalka? I'm not sure. Ma hubi ama ma hubo. Su'aashii la weydiiyey wuxuu yiri ma hubi laakiin some days ayuu yiri maalmaha qaar seems waxay u muuqataa seems okay waxay u muuqataa mid caadi ah marka maalmaha qaar it seems waxa weeye waa u muuqasho waa maalmaha qaar marka waxa u muuqata ayuu yiri mid okay ah oo wanaagsan but laakiin hase yeeshee other days maalmaha kale ama maalmo kale I'm totally bored in the class. Maalmaha qaar waxay ila muuqataa ayuu yiri mid okay ah ama hagaagsan laakiin maalmaha qaar waxay ila muuqataa mid aad caajis u ah marka mid boring ah ila muuqataa marka but other days ayuu yiri maalmaha kale I'm totally bored in the class. Waxaan ku caajisay fasalka maalmaha qaar kale waxaan ku caajisaa marka fasalka. Eegi wuxuu yiri marka I know what you mean. waan ogahay waxa aad ula jeedo marka I know waan ogahay what you mean waxa aad ula jeedo. Do you know what is wrong with the weather these days? Ma ogtahay ama ma garanaysaa do you know waxa weeye ma garanaysaa ama ma ogtahay what is wrong wax ka qaldan with the weather hawada these days maalmahan? I haven't seen maanan arkin the sun qorraxda in 2 weeks ama in 2 weeks laba isbuuc qorraxda maan arkin marka sidaa darteed wuxuu leeyahay what's wrong with the weather marka maxaa ka qaldan qorraxda jawiga ay raada hawada maxaa ka qaldan sidaa darteed wuxuu leeyahay I haven't seen maan arkin the weather hawada in 2 weeks laba isbuuc maan arkin marka hawada maxaa ka qaldan qorraxda maan arkin laba isbuuc sidaa darteed maxaa ka qaldan hawada ayuu leeyahay marka the weather hawada has been pretty terrible recently marka hawada maalmahan waxay ahayd mid aad u xun ay ahayd marka terrible waxa weeye aad u xun Britain waxa weeye aad way marka aad ay ugu jirtaa recently marka dhawaanahan hawada waxay ahayd mid aad u xun ay ahayd marka I'm really hoping waxaan rajaynayaa xaqiiqdii the weather in hawada gets better ay soo wanaagsanaan doonto marka waxaan rajaynayaa in hawada ay soo wanaagsanaan doonto marka I'm really waxaan xaqiiqdii hoping aan rajaynayaa the weather hawada gets better inay soo wanaagsanaaneso ama ay wanaagsanaan doonto marka gets waxa weeye
inay heli doonto macnaha wanaag inay heli doonto marka. Do you have something coming up? marka wax waraa kama haysaa waxa dhici doona ama waxa imaan doona. To tell you the truth, haddii aan kuu sheego xaqiiqda. To tell you waxa weeye haddii aan kuu sheego the truth xaqiiqda. It is just depressing seeing so much rain. waxay ii tahay niyad jab ay ii tahay inaan arko roob aad u tiro badan marka. I don't blame you. wuxuu leeyahay adiga kuguma candacoonayo kuguma eedeynayo laakiin it has been pretty gloomy for some time now. waqtiya adiga kuguma candacoonayo ama kuguma eedeynayo laakiin aad ayaa mugdi u jiray marka gloomy waxa la yidhahdaa mugdiga u eg ceeryaamada laakiin ceeryaamada ma aha laakiin waa mugdiga oo marka qorrax la'aanta jirta ayaa gloomy la yidhahdaa marka. For some time now waqtiya oo hadda ayaa waqtiyadan dhowba waxaa jiray marka mugdigaas ayaa jiray. This is my stop. halkan ayaa marka stopkayga ah meesha aan ku deganayay ayuu ula jeedaa stop. I will see you later. waxaan is arki doonaa xilli dambe. Classkii kalena wuxuu yidhi I will see you in the class. Bye. waxaan kugu arki doonaa classka ama fasalka ayaan kugu arki doonaa sidaa darteed nabadgelyo. waa hagaag. halkan waa keywordskii ama erayaashii aan kasoo xulay casharka oo kow ka ah weather hawada marka hawo ama jawiga lagu fasiri karaa. Finally ugu dambeyntii enjoying waxa weeye waa ku raaxaysi ama ka helid. Triple waxaan dhahnay aad u xun ama aad u daran. Plain niyad jab. Gloomy waxa weeye waa depressing depressing waa niyad jab. Blame waxaan dhahnay waa ku eedeyn ama qofkaan dacoonaya. Gloomy waxaan dhahnay waa mugdi. Rain waxa weeye waa roob. marka rain waa roob. marka casharkii halkaas ayuu ku egyahay. waxaan rajeynayaa in dad badan ay ka faa'iideysan doonaan. marka waa qeybta wada sheekaysana waa qeybtan marka kolley erayaashii aan islahaa waa ugu muhiimsanaan waa halkan. marka casharkii halkaas ayuu ku egyahay wuxuuna ahaa qeybtii afraad small talk English. marka waa aad baad u mahadsantihiin daawadashadiina. haddaad ka hesheen casharada la soo geliyay janaalkan fadlan subscribe sidoo kale asxaabtaada la wadaag.